caalamka oo dhan waxay indhaha ku hayaan wadanka Mareykanka gaar ahaan gobolka Alaska oo ah gobol ka tirsan dalkaasi Mareykanka waxa uu isla markaana u marti gelinayaa kulan nabad ilaalin ama kulan nabada oo isla markaana la dhaxdhigayo madaxweynaha wadanka Ruushka iyo sidoo kale madaxweynaha dalka Ukraine colaadii hore u dhaxaysay Ukraine iyo waliba Ruushka ayaa isla markaana waxa la soo sheegay in dad badan halka waxyeelo uu ku gaarayo halka kuwa kalena gaaji macluul ay isla markaana la soo darseen waa dadka Ukrainiyiinta haddaba madaxweynaha wadanka Mareykanka Donald Trump iyo waliba madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa ku kulmay gobolka Alaska oo ah gobol ka tirsan Mareykanka hayeeshee inkastoo isla markaana la isku eeganayo aniga ayaa quwad leh iyo maya anaga ayaa quwad leh arrintu halkaa isla joogtay kulankan wuxuu isla markaa ka dhacayaa wadanka Alaska waa wadanka Mareykanka gaar ahaan gobolkiisa Alaska hayeeshee haddaba sidoo kale indhaha caalamka ayaa waxay si toos u eegayaan gobolkaasi maadaama kulan nabada oo u dhaxeeyo waa madaxweynaha Mareykanka iyo waliba Ruushka horaan ayaa Ukraine iyo Ruushka colaad xilliga ay soo bilaabatay waxa taageero badan ay ka helayeen iyagu wadanka Mareykanka iyo Ingiriiska iyo Faransiiska hayeeshee xilligaas Mareykanka waxa madaxweynaha ka ahaa madaxweynihii xilka isla markaana ka degay waa Joe Biden hadda markii uu ku guuleystay madaxweyne Trump colaad inkastoo ay isla markaana ay socon kareenin maadaama madaxweynaha Mareykanka uu doonayo bilada nabada hayeeshee kulankan oo isla markaana warbaahintu iyo waliba caalamka ay si toos u eegayaan ma yihiin kuwa miradhala oo isla markaana xal looga gaari karo colaadda ka soconayso ama colaadda u dhaxaysa Ukraine iyo Ruushka haddaba sidoo kale inkastoo isla markaana madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin uu isla markaana dhul baaxadiisu ay aad u weyn tahay uu doonayo in uu ka qabsado Ukraine siyeeshee halkan nabad ilaalinta muu muuqata mid uu qaadan doono noogu reeb barta fariin qoraaleed ka aragtidaadii halkan waa Live News Somali TV aniguna waa Maxamuud Aad